laba sano in loo kordhiyo taa waan qabaa anigu ka beel ahaanna waanu qabnaa anagu in loo kordhiyo anagu ka beel ahaan talada nooguma jirto qorshaha nooguma jirto 5 sano in odaygu kaga tago ama lagaga tago ama reer ahaan ay kaga wareegto qorshaha nooguma jirto waxaan leenahay Soomaaliland ha xijisato waa la kordhinayaa qorshaha asaasan anagu wadnaa laakiin yeelkadeeda wixii kale haddana kama boodayno commissionka guurta rajo fiican baanu ka qabnaa waayo dee Soomaaliland wixii xeer u ahaan jiray siidayso beelana ma dhacayso haddii la kordhiyo waxba ma dhici jirin imikana wax ma dhacayaan bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo Axmed Maxamed Xasan boqor badmadow waxaan maanta xaggan ka jawaabayaa hadalkii ka soo yeeray boqor Cismaan aad buu dadka hadalkiisii warwar badan iyo naxdin badan ku abuuray boqor Cismaan ma wuxuu dadka tisayay inay beeshiisu dalka haysato ma wuxuu tisayay inuu awoodda dalka ay gacanta ku hayaan ma wuxuu u sheegay inuu Axmed Siiraayi boqorkiisii yahay boqor Cismaan ma lidig buu ku ahaa xukuumadan ma reerkiisu lidig ku ahaa ma umadu kicinayay mise go'aanku sheegay beelaysan uu lahaa beesheeda soo gaadhay ayaa dhaba haddaba waxaan leeyahay boqor Cismaan waxaan leeyahay waxa boqor Cismaan oo dalku beeshiinu beelaha dalka degan ayay ka mid tahay Siiraayana beelihii doortay ee ugu suuqo Soomaaliland ayuunba maantana ee u taala doorashadiisu hadday noqoto dibeen muddo kordhin hadday noqoto beelaha Soomaaliland oo dhan wax u yaala Cismaan maaha beeshiini iyo adigana kuma taalo waxay u taalaa commissionka qaranka ayay u taalaa oo soo codsan doono guurtida iyo baarlamaanka soo codsan doona haddaba boqor Cismaan markaad leedahay beeshayada aad bay dadkii warwarigu abuurtay aniguna waxaan la xishoonayaa anoo beelaha United Nationka oo kale ka dhashay ayaanan afkayga soo marin laayeen ay dhahdo beesha United Nation anoo ka dhashay ayaa soo marin lawa af beelahayga haddaba boqor Cismaan haddii aad ereyga ku celceliso bar madow baad ka noqon doontaa uqaasha dhexdeeda bar madow ayaad ka noqon doontaa taa waxaan kaga tagayaa erey kale oo carabka ku soo celceliyo oo yiraahdo beryahan nin wasiirada daahir yaala caayay nin wasiirada sidan yiri madaxweynuhu xaala ka bixiyo ninku xaalka uu doonayo waayo horta soo daahir yaala maaha daahir yaala wuxuu ahaa ninkii casarka dheer ka tagay daahir yaala maalintu kursiga doonayay ayuu hiil u baahnaa maanta hiil uma baahna daahir yaala boqor Cismaan daahir yaala hiilkiisu wuxuu ku ahaa maalintii inaad la joogto uu tartamayay ee dadkii ragga u baahnaa ee adiga uu ku baahnaa boqornimadaada oo adigii burco bartankeyga kaga dhawaaqay xisbiga udub inaad ka baxday taana waxaan leeyahay ha jeclaan daahir yaala maanta shalay hay daahir yaala jacaylkiisa iyo hiilkiisa daahir yaala maanta ninaba uma baahna ilaahay mooyaane hadiya jeer madaxweyne nin wasiiraa caay maanta daahir yaala caay iyo amaan iyo duco iyo habaar midnaba u baahan maaha laakiin maalintu wax u baahnaa oo adiga boqor Cismaan oo ka qaatay ee iska casilay xisbigiisa ee labada guri ka qaatay wasiirada aad soo celcelisana haddii aad ka tagi weydo anu boqor baan ahay reerkiisa matala asxaanada reerkiisa haysta adigu laakiin boqor Cismaan asxaanadii reerkaagu shirkii gal adag bay kaaga qaadeen maalintaad la soo noqoto asxaanadaadaynu ka wada hadli doonaa wixii intaan eed beeshiinu ku noqotay beeshiinu aniga igu tiraahdo asxaanadii baan dib ugu soo celinay ayaynu wada hadlay